saas darteed yaan maanta waxaan u cilaaminayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan in dalku uu ku jiro xaalad dagaal uu ku jiro xaaladan dagaalka ahna aysan noqon doonin hal dhinac oo kaliya ee dagaalkan uu noqon doono dagaal hadduu Ilaahay yiraahdo xaq ah bacdama aan xaq ku soconno Ilaahay inuu nala jiri doono insha Allah maxaa yeelay annagu waxa naga go'an in ummadda Soomaaliyeed badbaadadeedii aan ka shaqeyno iyo horumarkeeda si qof walba uu nolol fiican u helo yaa naga go'an waxa qaybaha kala duwan maxaan ku raahdaa amniga ciidamada qalabka sida qof walba oo ka tirsan ciidamada qalabka sida waxaan amar ku siinay inay heegan galaan oo ay qayb ka qaataan nabadeynta runtii magaalada Muqdisho koow iyo guud ahaan gobolada dalka ay qayb weyn ka qaataan maantana runtii isbedel baa dhacay oo waxa yimid taliyaal cusub haday noqoto xooga ciidamada qalabka sida gaar ahaan xooga taliska maxaan ku raahdaa nabad sugidda iyo booliiska iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay la shaqeeyaan ciidamadooda qalabka sida oo runtii u heelan inay keenaan ammaanka magaaladan si toos ugu Thank you.